السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidee rabtaa inaad ku ogaatid kombiyuutarkaaga xogtiisa. Wuxuu yahay kombiyuutarkaaga moodalku yahay Windows ku jira, RAM-ka ku jira, physical RAM-ka, all informationkaas oo sidee rabtaa inaad ku ogaatid. Waxaa dhici karta kombiyuutarkaaga inaad dareemaradii kaa maqan yihiin, waad rabta dareemare inaad la soo degto. Haddana taas waxaad ku khasbantahay inaad ogaatid kombiyuutarkaaga moodalku yahay iyo waxa weeye maxay ahayd kadib aad ka raadsan kartid dareemaradaas internetka. Menu-ga ku dhufanaysaa, kan start menu-ga ku dhufanaysaa, kadib waxaad qoraysaa waxa la yidhahdo waxa weeye system information-ka. System information-kaas ku dhufanaysaa, waad yara sugaysaa marka. Halkan waxaa ku qoran waxa weeye dhammaan halkan waxaad dul joogtaa waxa weeye system summary oo guud ahaan system information-kii oo dhan kombiyuutarkaaga wuxuu yahay. Hadda kombiyuutarkan waxa weeye OS ama operating system ku jira Windows 11 Pro version-ka wuxuu ka sii yahay waxa weeye 22621 waxa weeye maxay description-kana waxaa Microsoft Corporation weeye model name-kiisa waa kana, computer name-kiisa system name-kiisa waa desktop numberkaas la yiraahdaa. Halkaasuu ka sii yahay waxa weeye system model-kiisa waa ka waxa weeye type-ku ka sii yahay 64 miya mise 32 bit miya kulli all those information RAM-ka ku jira dhammaan RAM-ka ku jira waa kana, physical RAM-ka ku jira waa kana, all those information-kaas waa waxa weeye haddaad rabto for example dareemar hadduu kaa maqan yahay oo kale kombiyuutarka internet aad kusoo qabanayno system information-kana soo qaadanaysaa kadib waxaad leedahay dareemarka noocaas ayaa maqan. For example oo kale waxa weeye haddaan tusaale ahaan ku haddo wireless dareemarka iga maqan yahay oo kale waxaan soo koobiyanayaa waxa weeye system information-ka doona kana waxa weeye desktop GS ama waxaan samayn karaa waxa weeye halkaanaan qori karaa halkaanaan waxa weeye system model-ka soo qaadanaya waxaan leeyahay HP 820 G3 HP 820 G3 baan dhahayaa marka wuu soo kacayaa marka HP 820 G3 marka automatic wuu soo kacayaa oo marka haddaad waxa weeye maxay ahayd sawirkiisa rabtid inaad aragtid kuwa exactly saas oo kugu soo kacayaa kaas kula ka fiirsan kartaa waxa la yidhahdo markaas waxaa ku dhufanaysaa ku qoraysaa waxa weeye dareemar ama wireless hadduu kaa maqan yahay oo kale wireless dareemar oo kale kadib tusaalahaan oo kale waa kana shirkadana waxaa jira website tiro badan oo kuu sheegaya wireless-ka tusaalahaan hadduu kaa maqan yahay oo kale ama cod kaa maqan yahay oo kale markaas waxaa ku qoraysaa waxa weeye ama desktop-ka ku yahay oo kale wireless dareemar oo kale leedahay ama dareemaris oo kale leedahay dhammaan wixii dareemara marka website-yadaas badan qaarba waxaa laga yaabaa inay scamming oo kale isagu dhex gelinay marka waxaad dooranaysaa kan shirkadda HP ah hadduu kombiyuutarkaaga hadduu dal yahay midka dal ah hadduu kombiyuutarkaaga dal yahay model name-kii halkan soo aragtay waa soo qaadanaysaa halkan oo kale hadhow wuxuu noqonayaa dal hadduu yahay Toshiba hadduu yahay Samsung hadduu yahay waxa weeye all of them kadib waxaad gelinaysaa dareemaradii marka ku dhufatid iskuma dhufan waxaa laga yaabaa midka codka inuu kaa maqan yahay midka wireless kulli waxaad raacinaysaa dareemar kadib moodalka shirkadda kombiyuutarka shirkadda soo saartay moodalka kombiyuutarka uu yahay iyo waxa kaa maqan baa qoraysaa kadib markuu kuu soo baxo waxaad dooranaysaa shirkadda uu yahay waxaan waxaa laga yaabaa qaarkood inay fayras yihiin kuma wada dhufanaysa markaad dooranaysaa kadib baad halkaasaad kasoo dejisanaysaa marka haddii kombiyuutarka uu khad ku shaqeynaya kombiyuutarka kale kasoo gelaysaa kombiyuutarka markaa kasoo gashid for example oo kale haddii hadda wireless kaa maqan yahay oo kale waan sugayaa markuu soo kaco kanaan ku dhufanaya kan markaan ku dhufto way geenaya dhammaan waa dareemarada kombiyuutarka kusoo degay kan oo kale kombiyuutar kalaan kasoo gelaya qof kale uu ama saaxiibka ama familka qof ka mid waxaad dooranaysaa waxa la yidhahdo maxay ahayd dooranaysaa operating system-ka uu kombiyuutarkaaga yahay tusaale ahaan kan oo kale aad ka dooranaysaa
waa isku mid Windows 11 Windows 10 waa same waxaa doonaysaa modelku yahay kadib waxaa leedahay iraadi wuu ku raadinayaa computerkii waa xaggan sawir ahaan loo soo dhigayaa saas oo markuu yahay kusoo kabo computerkaagii mar walba waxaa hubinaysaa modelku yahay waxaa laga yaabaa modelka in driverkiisa soo dejisatay dhammaan dareemada marka dhigtagta mooranka tunka marka wireless ugu xiran yahay cable xarig kugu jiro kala dhigi karta ii baan adiga waxay noqon kartaa dhigtagta galeen wax ka maqan iyo soo dejiyo karta laakiin haddii mooranka sababtoo ah waxaa weeye website waxaa laga yaabaa in computerka uusan khadka soo qabanin marka waxaa computerka la gelaysaa halkan balaaska ku dhufanaysaa meesha balaaska waa yara sugaysaa kusoo kabo waxaa raadinaysaa wireless duu cod kaa maqan yahay waa kana ku dhufanaysaa soo dejinaysaa hadduu kaa maqan yahay graphics kaa xun yihiin ama muuqaalka shaashada ama wax lamid ah ama video graphics iyo waxa weeye frameworka iyo network hadduu kaa xiyo network waxaa wirelesska iyo kii cableka oo dhan markaas waxaa dooranaysaa waxa yidhaha maxay ahayd wireless kanka waa lineka kii cableka driverkii caadiga USB markaas koo waxaa dooranaysaa kan soo dejinaysaa marka labaad waxaa dooranaysaa waxa yidhaha maxay ahayd kan ilaa iyo waa soo wareegaysaa flash box soo qaadaysaa computerkii kusoo qabanaya wirelesska tigaysaa kadib install garanaysaa automatic saas u diraysaa kadib saas ugu shaqeynaya aad baa mahadsantahay